iminkana 26 July sanadkan ayuu dabley boolis baashi Mustafa Cumar Dhaqane ku dilay Allah u naxariistay marxuum Sheekh Nuur Maxamed Maxamuud degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Sheekh Nuur Maxamed Maxamuud oo ahaa arday dhiganayay iskuul ayaa marayay meel aan ka fogeyn ceelgaabta xilli fiid hore ah waxaana dilka u geystay dabley boolis baashi Mustafa Cumar Dhaqane oo ay sheegeen marqaatiyaal la socday marxuumka inuu soo isticmaalay waxyaabaha ammaanka dooriya askariga dilka geystay. isla xilligaasi oo uu geystay dilka ayay ciidamada amnigu xireen waxaana uu saldhigga booliska Xamar Jajab ku wareejiyay xafiiska xirlaalinta oo ahaa goobta lagu dhaqaajinayo gal dacwadeedka. maalin kadib ayay garsoorayaashu u direen xabsiga dhexe eedeysanaha garsuga ahaan 19 bishii tagtay ayay codsadeen xafiiska xirlaalinta in la mudeeyo dhageysiga dacwadda baashi Mustafa Cumar Dhaqane. 26 bishii 8 ayay balmisay maxkamadda darajada koowaad dhageysiga dacwad ka dhan ah baashi Mustafa Cumar Dhaqane. xafiiska xirlaalinta ayaa maxkamadda hor keenay laba marqaati baarihii kiiska sawirka marxuumka, warqadda caddeynta dhimashada ee dhakhtarka iyo qorigii uu dilka ku geystay oo noociisu uu ahaa AK47. laba xidigle Ismaaciil Salaad Maxamuud oo ah ku-xigeenka xiraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dooday in eedeysanaha maxkamadda hortaagan uu ku xadgudbay sharafka ciidanka iyo ilaalinta muwaadinka. waxa uu ka codsaday maxkamadda in lagu xukumo dil toogasho ah. qareenada u dooday eedeysanaha ayaa maxkamadda weydiistay in loo naxariisto maadaama uu ahaa qof aan miirkiisu joogin. ugu dambeyn maanta ayay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ka soo saartay go'aan waxaana maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ahaa qisaastii marxuum Sheekh Nuur Maxamed Maxamuud sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.